Waxaan necbaa daqiiqad waliba tababarka, laakiin waxaan naftayda ku oran jiray, ha joojinin, hadda dhibaato badan ha ku gaarto, kadibna u noolow inta cimrigaaga ka dhiman, adigoo ah horyaal guuleysta. Waxaan ka baryay Allah inuu i xafido, igana ilaaliyo cadowgayga. Durbadiiba waxaa bilaabatay inaan waayo saaxiibadii xumaa. Ninka jira 50 sano u arkana nolosha sidii uu arkayay kolkii uu jiray 20 sano, wuxuu lumiyay 30 sano oo noloshiisa ah. Ma aaminsani inaan qaato go'aan sax ah, kaliya waxaan qaataa go'aan, waxaana ka dhigaa mid sax ah. Ma cabo sigaar, balse waxaan jeebka ku qaataa taraq. Goortii qalbigayga u janjeero inuu sameeyo dembi, waxaan daaraa taraqa, gacantayda ayaana ku qabtaa si aan ugu kululeeyo. Kadibna waxaan naftayda ku dhahaa, Caliow, xitaa uma adkaysan kartid kulaylkan yar. Sidee ugu dulqaadan kartaa kulaylkan loo adkaysan karin ee naarta? Marnaba kuma fekerin inaan guuldareysanayo, laakiin hadda way dhacday. Waxa kaliya ee harsan waa inaan sameeyo wixii sax ah. Taasi waa waajibaadka iga saaran dadka i aaminsan. Dhammaanteena wayna soo marayaan guuldarrooyin nolosha ah. Waxa jirkayga u soo dhibtooday una soo adkaystay way u qalantaa wixii aan gaaray nolosha. Qofka aan lahayn geesinimo ku filan uu ku wajaho khatar kasta oo ka hor timaada, marnaba ma gaarayo wax guul ah. Waa iimaan la'aanta waxa dadka ka dhigay inay ka baqaan wajahida dhibaatada iyo loolanka nolosha. Anigu waxaan aaminsanahay Allah, waana ku kalsoonahay naftayda. Sidee bay ii weydiin karaan inaan xirto dhar ciidan oo aan aado meel gurigayga u jira 16,000 oo kiiloomitir, kadibna aan bambooyin iyo xabado la dhaco dad midab bunni ah leh oo ku nool Vietnam, kolka dadka madow ee aan ka dhashay ee ku nool Louisville loola dhaqmo sidii eeydii, loona diido xuquuqdooda ibnu aadannimo.